xerooyinka ku jiray dadka mobeelada ka furanaya guryahan ku haysana jamhuuriya iyo cali geydi iyo kaaraan waxaa laga mari leeyahay 13 jir midi ku hubaysan maxaan ciidamada u tababaranaa maxay ciidamadu ugu hubaysan yihiin garaadada maxay ciidamadu hubka ugu casrisan u wataan maxaa ciidamada loogu bixiyay gargar iyo haramcad hadayna umada waxbu qaba karin mujrimka ayna madaxa ka baji karin andooriyaha maanta muqdisho meel walba daadsan taabuuga xashiishka qamriga maanta la iskugu faanaya ay aad arkayso wiil ka qurux badan ay dhacay lugihiisu ay celi karin oo ka hor imaanaya gabdha cabsan oo dharkii tuurtay baa ka hor imaanaya inay wax fasaadiyaan inay wax boobaan inay wax kufsadaan inay wax dilaan inay wax cabsiyaan inay wax argagixiyaan waxaan la hadli ciidanka gargar iyo saraakiishooda maxaa ummadda maxaan la tababaray gaadiidka iyo hubkaada haysataan reer muqdisho iskale maxaad ummadda u dhibaysaan ciidanku waa inay shacabka ku kalsoonaadaan waa inaad shacabka ilinta ka tiri kartaan waxba gargar iyo haramcad iyo niso iyo ciidanka boodo iyo ciidanka balaayada hala bixina shacabka waa inaad baahidooda iyo amnigooda dabooli kartaan ay dunida hala dhaafsi nin ku tali kara ma jiro nin walba wuxuu leeyahay salaam naqso wada hebel warkiis ma gash aday ku taala soo jeed umadu goormay badbaadi marka umadu waa inay heshaa dad ducaado naftooda u horo waa inay heshaa umadu waa inay heshaa dadaan aqoonta xoolo iyo dhaqaale ku doonaynin ay ku doonayo umadu inay diintoodan u badbaado umaduna adduunyadan ay badbaadaan aakhirana ay badbaadaan waa inay helaan dadku dad ducaado diinta ilaahay karum sheegay bismillaah waxaan rabaa inaan baraarujiyo dhibka iyo dhibaataynta maanta la iskaga dayday dilalka arxandarada ay gaar ahaan ka dhaco magaalada muqdisho iyo islaamku wuxuu ka yidhi islaamku waa kii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay u doortay una soo saaray ilaahayna uuna amray inaan asaga raacno dariiqa saxda ah oo ilaahay noo dooray ifi aakhirana waa qur-aanka iyo sunnaha dardaaramkii nebigeyna sala allahu calayhi wasalam ummatul islaam markii uu la dardaarmayay bulshada muslimka ay afka kaga dhawaaqday towxiidka uurkana ka rumaysay adimahna ka samaysay laba shay buu u dardaarmay kelimadan waa kelimad muhima dadka murabbisiinta ah ee jaamacadaha iyo masaajidda jooga ruux kasta oo murabbis ah ama mudaris ah ruux kasta oo bara ah ama waxbarta ayay qusaysaa iyo dadka qur-aanka akhriya ee qur-aanka la nool dardaaramkii ummatul islaam ayaa wuxuu noqday sida soo socoto maxaa maanta ka haynaa xadiiska alxaakim baa soo saaray abi hurayra warinaya wuxuu leeyahay nebigeynu innii qad taraktu fiikum shay-ayni lan tadiluu bacdahumaa kitaab allahi wa sunnati innii qad taraktu fiikum waxaan nii dardaarmay oo aan iigaga tegay fiikum dhexdiina shay-ayni laba shay lan tadiluu bacdahumaa labadaa shay kadib ma baadiyoobaysaan dad dunida lagu ihaanaysto la qaybiyo la gumaado dhexdoodana ay isgumaadaan ma naqanaysaan iimaanka iyo ballanqaadka ilaahay iyo waciidka ilaahay baan ii kala celinaya waa labadee kitaab allaahi wa sunnati kitaabka alle iyo sunnahay waxaa muqdisho la iska dhaxlay dilalka arxandarada horey waxaa wiil yar oo sibyaan ah oo dhalinyaro ah ayaa adeerkii hooyadii qabay ayuu sida uu barays ugu qaraacayay buu wuxuu ka qaaday nafta suxun buu u dilay waxaa ku xigtay aabba soomaaliyeed oo asgiri ah inuu wiilkiisii toogto wax yar oo canaanaho oo afka uu kala hadli karo ku dilay waxaa ku xigtay isla aabbe wiil inuu aabbihii dilo waxaa ugu dambeysay
hooyo wax dhashay inay gabadhaydii ceyjo ruuxda kaga qaado dabadeedna meydkaydii gurigii ay ku nooleed qayb ka mid ay dhigato yacni waxyaabaha aan la qaada karin ay jariimada ee muqdisho ka dhacaya bani aadamku ilaahay baa u abuuray inuu dhinto iyo inuu noolaado qofku haddii ajashiisu ay soo gashana uu dhimanaya laakiin waxaan ka hadlaynaa dadka waxaan geysanaya waa dad muslima waa dad waalida waxaa la iskaga dayda marka arxandaro waxaa ka horeysay 2 caruur oo isla dhalatay oo 5 jir iyo 6 jir ah oo ceyjo iyo bacqafiif lagu dilay ilkihiina laga daadiyay dhaqaatiir dhalinyaraha la waayay gabadhii ugu dambeysay dhakhtarad bay ahayd dilka muqdisho ka socda ee aad moodo in la iskugu faanaya ee ruuxa aan wax dilin inuu yahay dugaag maxaa xal u ah ummadda waxaa xal noo ah intayna aqliga saliim kale ay dareen kale ay xurta ah ay qof kasta oo muslima la jecel wuxuu naftiisa la jecel yahay inaan badbaadno oo aan qaadano kitaabka ilaahayna aan isku fulino maxkamadaha iyo garsoorka inaan kitaabka ilaahay dhigano maanta dadkii mubeele ayaa lagu dilaya yuu yahay ruuxa nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam ka naxariis badan ilaahay ma abuuriyay adduunyada ma soo mariyay adduunyada ma imaanaya ilaahayna ma abuurin adduunyadana ma soo marin adduunkana imaan mayo cid nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam ka naxariis badan oo bashara oo bani aadam oo ilaahay abuuray nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay oo magaalada maka ka hijrooday 13 sano kadib waxa uu imaaday 8 nin islaamnimay muujisteen nabigay u yimideen cudur la yiraahdo calul weyn baa ku dhacay geel sakawaad loo keenay magaalada madiina banaankeeda ayuu nabigu wuxuu yiri ordo halaha magaalada banaankooda aado caana iyo kaadida kacaba caanihi iyo kaadida iyo cabeen kaadida iyo caanihi markay cabeen oo cudurkii haayay oo ay ka raysteen ay waxay dileen geel jirkii nabiga sallallahu alayhi wasallam bay dileen indhahana qodxay ka geliyeen islaamku wuxuu ilaaliyay oo si cad u ilaaliyay koow xifdu diin wuxuu ilaaliyay xifdu nafsi islaamku wuxuu ilaaliyay oo la yimid wax la yiraahdo xifdul maal islaamku wuxuu ilaaliyay xifdul aqli man dooriyaha maanta muqdisho meel walba daadsan taabuuga xashiishka qamriga maanta la iskugu faanaya ay aad arkayso wiil ka qurux badan ay dhacay lugihiisu ay celi karin oo ka hor imaanaya gabdha cabsan oo dharkii tuurtay baa ka hor imaanaya nimanka markay falki geysteen ilaahay baa ka jawaabay iska fiiri sheekh quraanka aad akhrinayso ku yaala suuratul maa'ida oo madaniya ah raqamka aayada 33 baa ilaahay kaga hadlay 8 nin ilaahaygi abuuraa wuxuu ku taliyay ummadda in laga dhax saaro waa kansar ilaahay baa wuxuu yiri kuwaan bulshadayay ku dhax jirin ee laga saaro ilaahay wuxuu ku taliyay inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله رب العالمين باوحوا ليهي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله محو أبالكود نقنيا كوا لدغالما يا الله يا رسول كيسا أو يسعون يعي في الأرض للك دشيسا فساد لا يعي إني وح فساديان إني وح بوبان إني وح كفصدان إني وح دلان
inay wax cabsiyaan inay wax argagixiyaan alla wuxuu yiri an yuqattalu wuxuu yiri alla waa in la laayaa mubaalaqa ku jirto intay ka timiday marka luqada carabiga u laabano min qatala ay ka imaaday maanta gacan ku dhiigle iyo mujrim iyo faasiq arxan daran ay aan u aaba yeelin waa adeer aabo la dhashay waa eedo aabay la dhalatay waa walaasha abtiga aha dhalay waa diriskaagi waa gabar muslimada waa gabadhaadii oo kale oo gabadhaadii malcabad iyo dugsi iyo iskuul la dhigataa nin aan aqaaninay maalin walba umada dil iyo boob ku haya ayaan guriga ku haysanaa qabiyaalada inaga tahay khudaacu duruqa wadooyinka ku jiray dadka mobeelada ka furanayo guryahan ku haysana jamhuuriya iyo cali geedi iyo kaaraan waxaa laga mari leeyahay 13 jir midi ku hubaysan maxaan ciidamada u tababaranaa maxay ciidamadu ugu hubaysan yihiin garaadada maxay ciidamadu hubka ugu casrisan u wataan maxaa ciidamada loogu bixiyay gargar iyo haramcad hadayna umada waxba u qaban karin mujrimka ayna madaxa ka baji karin garsoorka iyo cadaaladda maxaan u samaysanay kuwa umada dilaya hadaan umada laga qaban karin ee aan xabsiga lagu hay karin ee aan la edbi karin xalay nin baa masaajidka istaagay aniga baahi buu sheegtay imaamkii masjidka wuxuu yiri waan garanayaa inkaan hala caawiyo dadka ku shaqaysto barnaamijkan ma aha wuxuu noo tilmaamay xaalad adag oo gurigiisa ka jirto hal nin mobile wata naga la waay guriyahan ugu soo wada tagna mobiladii waan baqaynaa xaqiiqdan sheegaya waxaan ka habsanaynaa 13 jir iyo 20 jir inay mobilada naga furtaan amba ay nagu dilaan ka baqaynaa meel walbo aan joognana waxa ka jirto degmada Yaaqshiid degmada Kaaraan waxay ka kooban yihiin si ogowlaan iyo saldhig bay ka kooban yihiin gudoomiye ku xigeen saldhiga wuxuu leeyahay taliye saldhig laantuna waxay leedahay taliye intuu maxay qabtaan degmo walbana control baa ku yaal hal nin oo wax u taagaa la waayay shantayni maxaan ugu dhacday nin walba wuxuu ninkii uu aniga soo raac yuu raacaya marka yuu raaci nin walba intuu tago yiri markaas sunaysto way israacayna nin kala war ka haya ma jiro yuu raaca markaasuu wuxuu yiri aan raaca ka wuxuu yiri raac adigu waxa ay tiri yiri raac markaasna waxaan ku yiri ninkii ugu horeeyay ee raac ku yiri raac barnaamijka marayna maanta u fiirsada mobiladii xaafadaha loogu tagaya maskiinka masaajidka ka qayliya baahidu waa laba iska fiiriya qofna baahidu way ka muuqataa oo waxay ka muuqataa dhogortiisa iyo jirkiisa ka muuqataa soodkiisana waa laga dareemayaa su'aasha inuuna aqaaninne waxa laga dareemayaa wuu yaxyaxi marka umada hor istaago ruuxna su'aasha joogtada ka dhigta waa la garani asagoo xarakoonayo ay aad moodo nin daaciya ama nin caalim ah ay umada hor istaagi maxaa yeelay maalin walba dadku wax weydiistaa laakiin kan su'aasha duruuf baa ku raacday laakiin markuu umada hor istaago wuu yaxyixi wuu xishooni muqdisho maxaa xal u ah soomaaliyada kale aan ka imaanne oday waayeelaho muqdisho ku nool baan ahay saxaafadii xurmadii waa laga qaaday nin muslima oo saxafiya oo muwaadin ah oo wadankiisu ku nool ayaa 8 subaxnimo inta dhulka xabadka loo dhigay ayaa waxa xirigii laga furay 2 duhurnimo inta xabadka dhulka u yeelay qaarkood waxa la naasay ka bislaadeen xuquuq muu leeyahay uma laha wuxuu xaq u lahay askarta maxaa loo tababaray askartu waa inay shacabka xaq dhooraan waxaan la hadli ciidanka gargar iyo saraakiishooda maxaa umada maxaan la tababaray gaadiidka iyo hubkaada haysataan reer muqdisho iskale maxaad umada u dhibaysaan ciidanku waa inay shacabka ku kalsoonaadaan waa inaad shacabka ilinta ka tiri kartaan waxba gargar iyo haramcad iyo niso iyo ciidanka boodo iyo ciidanka balaayada hala bixina shacabka waa inaad baahidooda iyo amnigooda dabooli kartaan
qofka shacabka markii nin nigamida uu dulmiyo waa inuu adiga kalsooni kugu qabi karaa niyow ninkan sargaalka ah oo adiga dacwo kugu imaan karaa xilligu ku baahdan oo inuu ku heli karaa dulmiga laga aamusay markaas waxaan loo arkay xaq ilaahay adoomadiisa waa in loo nabadgeliyaa waxaan ku talinaynaa ruux kasto naga mida inuu adoomada ilaahay ka leexdo adoomada ilaahay xoolahooda inaad u nabadgeliso inaad naftooda u nabadgeliso sidaad ilaahay agtiisa ugu nabad gasho adduunyadana aad ugu nabad gasho waan ku baaqi ummadda dhibka laga daayo dadka caadaystay inay ummadda furtaan inay dadka dhacaan inay dadka dilaan inay dadka cabsiyaan inay dadka iibsadaan dembiyada ilaahay laga galo waxa kamida ruux xur ah oo muslim oo aad iibsatay ayaa kamida dembiyada waaweyn oo ilaahay laga galo kabiira min al-kabaa'ir muqdisho maxaa xal u ah fariintan waxay qusaysaa aqoon-yahanka muqdisho ku nool saxafiga rugcadaaga ay saxaafadda meel weyn ka gaaray abwaanka wax curiya ninka laashimka ninka ugaaska ninka ganacsatada ay bilyaneerka ah $1 milyan oo dollar barkan gabadha muslimadda ah sharafta leh ay doonaysa wiilkeeda iyo ninkeeda iyo aabaheed inay u nabad galaan xalku wuxuu noqonayaa inaan kitaabka ilaahay isku xukumno xadiiskan ibn maajah soo saaray nabigaynu wuxuu leeyahay iqaamatu haddin min xuduudillahi khayrun min madari 40 laylatan fi bilaadillahi caza wajal iqaamatu haddin min xuduudillahi xuduuda ilaahay oo la oogo ayaa waxay ka qayr badan tahay buu leeyahay nebigu 40 habeen roob da'aya fi bilaadillahi caza wajal xuduuda ilaahay xad kamida oo ilaahay adoomadiisa oo faray oo la fuliyo ayaa waxay ka qayr badan tahay 40 habeen roob da'aya labayo tobankii December meel baan ku qoray weligay ma hilmaami doono 29 December aan dhaho 29 December maalin Arbaca nin 5 qof oo dilay iga hor yimi 5 ruux nin dilay ay macaawis wato iyo shaar markaasaan inta eegay aan istaagay aan dib u eegay oo ii soo laabtay wax baan dhaxmaray nin dhaalima oo mujrim oo runlow ahay ظالم مجرم أو قاعن كديجلا أو قاتل أو مدة دعاء أو مدة بابا أو حرام إيه بلايا كشقيا أيوها محانا الأحمر يعني يا سجى وحانا الأحمر تسيد سعود وعويري شيخ سلاد هو وأنكو جيدا ولا شيء ذاك حنت وعويري لكن وعويري وقت يجي بان هيستا وقت يجي أيان جوجا maanta dunida waxa xur ah oo meesho rabo mari karo ruuxa dambilaha kelimada qaata maanta waxa xur ah yiri ruuxa dambilaha hay dadka cabsiya ay dadka dhaca ay dadka dila anigu wuxuu yiri 5 qofood oo aan qaraabanahay hadaan ku soo baxo way baqaan buu way cabsadaan wa qabiil dan ayaa hal nin oo mujrima ay wuxuu leeyahay way iga baqayaan waana runtiisu way ka baqayaan dhaqanku kuma tali karaan ninka ummadda ayuu dhibay dhulkana wuu dhibay diintana wuu dhibay ay dunida hala dhaafsi nin ku tali kara ma jiro nin walba wuxuu leeyahay salaam naqso wada hebel warkiis ma gash aday ku taala soo jeed ummaddu goormay badbaadi marka ummaddu waa inay heshaa dad ducaado naftoodu u horo waa inay heshaa ummaddu waa inay heshaa dadaan aqoonta xoolo iyo dhaqaale ku doonaynin ay ku doonayo ummaddu inay diintoodan u badbaado ummaduna adduunyadana ay badbaadaan aakhirana ay badbaadaan waa inay helaan dadku dad ducaado diinta ilaahay karum sheegay gabar dhakhtarada la dilay wiil dhakhtaraha la dilay dhaqaatiira balcad lagu laayay soo jeed goormeen ku jirayna ay taxsi iyo cambaarayn wax sii soco kara maaha waa inuu aqligu iyo damiirku uu shaqeeyaa
وإنه شقيا عقلك السليم وإنه شقيا dadka caadaystay inay adoomada Ilaahay dhacaan inay dilaan inay dhacaan inay kufsadaan dimbiga ay leeyihiin lagu qaado Ilaahay ba amray in lagu qaado ruuxan Ilaahaygi abuuray ayaa markuu jidka galo alla wuxuu uri dadka hala dhaafsiyo say adigu ku haysataa Allah alihi amra wuxuu uri hala dilo marka waxaan ku soo gabagabeynay war dadka beelaha Soomaaliyeed hogaamiya ee muslimka ay dadku u yaqaanaan nabadoono iyo ugaasyo iyo wabaro war umada badbaadiya war dulmiga umada lagu hayo iyo dhaca umada lagu hayo iyo cabsiinta umada lagu hayo war umada ka dulqaado waa cibaade بيتك إلهي أو أد أمرادو تنا كعبادة بدن تنبا كعبادة بدن كان أفضل صن ور إلهي أمدي سبت بادية ور ظلمي إسكاك دول قادة ور أمد مسلمة وحور النقدة هذا أمها سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته